So بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم كلنتي wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka Googa oo hadahan oo kala aad ka daawataan shaashada telefishinka qaranka barnaamijka Googa waa barnaamijkeeni waa barnaamij aan ugu talagalay in cid kasta oo barnaamijka nagala soo qayb gasho aan ku weydiino su'aalo sida aad magaca ka arkaysaan Googa cigala waxa ka mid tahay aftahamada iyo dhaqankeena su'aalahan isku weydiin jirnay iyadoo oo garaadka qofka aynu kor ugu qaadi jireen dhaqan ahaan ayaynu u lahayn isweydiinta su'aalaha taasi oo carisa qof walba garaadkiisa korna u qaata aqoonta uu leeyahay waxaan wada ognahay qof kastaba aqoonta qayb uu ka yaqaana ma jiro qof dhameystiran oo aqoonta koobay balse inta nasiibkaaga aad ku garan doontid iyo inta aqoon ahaan aad labadaba u leedahayba labadaas oo isku kaashada waxaad ku guuleysanaysaa lacagta barnaamijka Googa su'aalo kala duwan ayaa barnaamijkan aanu ku weydiinaa cid kasta oo nagala soo qayb gashay barnaamijka waxa iska kaashanaya telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana maalgelinaysa shirkadda isgaarsiinta gayga Somaliland guulay u horseeday badan waxaanay ku guda jirtaa dadaalan kala go'ayn isgaarsiinteena gayga Somaliland guulay u horseeday badan waxaanay ku guda jirtaa dadaalan kala go'ayn soo gaadha oo soo gashada isgaarsiinteena gayga Somaliland guulay u horseeday badan waxaanay ku guda jirtaa dadaalan kala go'ayn soo gaadha oo soo gashada isgaarsiinteena soo gaadha oo soo gashada isgaarsiinteena soo gaadha oo soo gashada isgaarsiinteena dawadalintaasi markanu xayeysiiskaasi aynu kaga nimaadno waxaynu gudageli doonaa barnaamijkeena Googa waxaan u yeedhi doonaa tartamayaasha barnaamijka igala qayb galaya waxaan soo kicin doonaa safka hore inankaasaan ka soo kicin doonaa safka dambe ka ugu wada dambeeyana inanka shaarka cadle hay soo kaco ugu horeyn magacaaga saddexaan walaal magacaygu saddexaan waxa Maxamed Ibrahim Maxamuud Yos way Maxamed aan ku salaamaya ku soo dhaw barnaamijka Googa magacaaga Kiise Maxamed ma shaqaysaa ma arday baa tahay anu haa waan shaqeeyaa laakiin macallin baa tahay waa tahay adiguna macallin mise shaqo kale ma qabataa waa tahay labadiina way ku soo dhaweynaya barnaamijka Googa haddaan xoogaa idin sharaxo barnaamijka labadiina tartamaya laba kursi baa halka yaala kiina guuleysta ayaa yeelan doona kursi ka mid ah kuraasta barnaamijkan ugu talagalnay markaad halka gaadhaan ayaana lacagtu inii balaamaysaa qofkii halka hela ilaa 12 su'aalood ay ka dhamaanayaan wuxuu fadhiyo doona kursigaasi su'aashaad garan weydo lacag unbad ku waayaysaa laakiin kursiga ka kicimaysid waan diin bilaabaya diyaar ma tihiin ugu horreysad u aragtaan barnaamijka Googa soo dhaweynaysaa aad baan soo dhaweynaa Googa cigale hore ma ciyaartay may inta yarada xitaa waa yaraantii waan ciyaartay laakiin Googa cigale meel masrax la soo fuulayo kulli waxaan cururnaynaa waa inaan dib ugu noqono dhaqankeeni waxyaabo badan oo dhaqan aanu lahayn baa jira way ka mid yihiin su'aalaha barnaamijka inta soo gali doona halkaas waxa idin ka soo bixi doona 12 su'aalood 12 su'aalood mid kastaba qof kastaba lambarku doono ayuu dooranayaa kiineban horeysiya adiga horeyni Maxamed soo muuhayn Maxamed 1 ilaa 12 lambar qabso number 10
lambar 10 maxamed lambar 10 ayuu qabsaday waxaanu eegi doonaa weydiinta uga soo baxda lambar 10 maxamed weydiinta waxay ku horanaysaa maxamedow xanuunka nirgaha ku dhaca ee ay shilintu keento waxa la yidhaahdaa xanuunka nirgaha ku dhaca ee ay shilintu keento waxa la yidhaahdaa muqlo dhugato caal iyo intaba xanuunka nirgaha ku dhaca ee shilintu ku keento xagga dhaqanka horta iskuma ficinin laakiin bal nasiibkaaga adeegi doontaa muqlo dhugato caal iyo intaba waxa weeyaan caal oo ja'a waxaynu eegi doonaa jawaabtaasi uu maxamed uu doortay sax ama khalad ama sax sidaasi ayay khalad ku tahay muqlo ayay sax ku hayd waad ii taagnaanaysaa jaanis waxaad ka heli doontaa saaxiibka hadduu garan waayo waad soo noqonay haddii kale dib baad u noqon doontaa adigaa isku soo hadhnay su'aalaha 10 unbaa ka baxay ilaa 12 lambarkee ayaan kuu dooraa amba baad qabsanaysaa su'aalahaasi waad ku xigtay isagoon lambar 11 nasiibkaagaan eegi doonaa su'aashaasi waxay noqoto su'aasha lambarka 11aad ka soo baxdaynu eegi doonaa xoolaha marka la soo waraabiyo waxa la yidhaahdaa xoolaha marka la soo waraabiyo waxa la yidhaahdaa way cokan yihiin way cifan yihiin way caaleen waa la ururinayaa xoolaha marka la soo waraabinayo waxa la yidhaahdaa way cokan yihiin way cifan yihiin way caaleen waa la ururinayaa xoolaha marka la soo waraabiyo qoraalkood arkaysa afkana mikrofoonka u dhaweeye afka u dhaweeye maxaa tiri way cokan yihiin oo ba way cokan yihiin su-aasha jawaabtaasi ayaanu eegi doonaa mase kursigaa ma yeelan doonaa mise sidii saaxiibkii ayuu khaldi doonaa way cokan yihiin baynu eegi doonaa ba sax ama khalad sax hambalyo kursi buu saaxiibkaa yeeshay adiguna dib baad u noqon doontaa kursiga doonta qabso maadaamaad tahay qofka ugu horreeyey waxaan soo kicin doonaa labada tartame ee ku xiga labadaa tartame kayse waxauu ka mid noqday tartamaha ugu horreeyey ee ku guulaysta kuraasta barnaamijka googa waxaan u yeedhi doonaa laba tartame waxaan ka soo kicin doonaa safka dhexe iyo safka ugu horreeya labadiinaasi soo kaca kayse kursigiisii koowaad ee barnaamijka googa waa la qaatay kursigii labaad ee barnaamijka ayaan sugaynaa kayse wuxuu sugi doonaa tartamaha labaad ee la tartami doona soo dhowow ugu horrayn magacaaga ridwaan cabdijaamac adiguna iido aadna halka soo bax ridwaan iyo iid ku soo dhowaada barnaamijka googa dabcan waad arkayseen saaxiibadiina idinku horreeyey ee barnaamijka googa ku tartamayay mid kasta kayse wuxuu noqday tartamaha ugu horreeya kursiga ku guulaystay labadiina mid ka mid ah ayaa kursiga labaad yeelan doona ku noqon doona nasiibka inoo sheegi doona saad aragtaan barnaamijka waa tahay afka ku yar dhaweyn mikrofoonka waa wax laga faa'iidi karayo wax kaaga kordhi karaan waan soo dhaweynaynaa barnaamijka waa tahay nasiibkiina labadiinaba idii eegi doonaa adaa ka horrayn doonaa su-aasha koowaad idinkoo ii soo dhowaanaya lambarada haysataa waa 1 ilaa 12 lambarka doontaad ka qabsan doontaa su-aasha kaaga soo baxda ayaan kuu eegaynaa lambarkaa ku qabtaa lambar 2 lambarka labaad iyo tartamaha labaad qaybtiisa labaad ayaanu eegi doonaa su-aasha uga soo baxda su-aashaasi waxay noqoto su-aashu amaba weydiintu waxay ka oranaysaa dabada fardaha waxa la yidhaahdaa dabada fardaha waxa la yidhaahdaa qanaan dub sayn hayl dabada fardaha waxa la yidhaahdaa qanaan dub sayn hayl bismillaah haddaan isku dayo horta fardaha ma taqaanaa fardaha wax ma ka garanaysaa waxoogaa oogana ka aqaan laakiin weligay maan foolin laakiin aragti mooyaane waayo bulka iyo dabada dheer ay leeyihiin quruxda inta badan u samaysa maxaa la yidhaahdaa sayn baan jecelahay oo jaa sayn oo jaa sayn oo sayn aynu eegi doonaa waa doorashadaadii ugu dambaysay
waxaanu eegi doonaa ja oo sayna su-aasha jawaabtaasi sax ama khalad waxay sax ku tahay qanaan laakiin jaanis weli waxaad leedahay ridwaan oo garan waaya su-aashiisa bal waynu eegi doonaa jaaniska ridwaan u yaala inuu iska beerdareeyo iyo inuu garto oo kursigaasi lacagtu ku bilaabmayso u yeesho ridwaan lambarada kuu soo hadhay waa 1 ilaa 12 lambar 2 unbaa la doortay oonaad mar labaad dooran karin sida calaamadda ka muuqata maxaa kuu qabtaa lambar 5 qabo lambar 5 waayahay lambarka 5aad ayaynu eegi doonaa su-aasha jawaabtaasi amaba weydiinta adiga kaaga soo baxda waxay ku oranaysaa weydiintani masjidka al aqsa waxaa dhismihiisa bilaabay nebi waxa laga rabaa markaa nebiga ba muuse calayhi salaam daa'uud calayhi salaam ciise calayhi salaam yuusuf calayhi salaam masjidka al aqsa waxaa dhismihiisa bilaabay ba nebi muuse calayhi salaam nebi daa'uud calayhi salaam nebi ciise calayhi salaam xa oo nebi yuusuf calayhi salaam masjid al aqsa su-aasha haddaan isku dayo waa ja oo nebi ciise ah su-aashaasi waa doorashadaada ugu dambaysay waxaanu eegi doonaa ja oo ciise ah ayuu doortay masjid al aqsa su-aasha jawaabtaasi khalad mise sax hadduu saxo kursigu yeelan doona qalad waxaas dhisay nebi daa'uud calayhi salaam fursad labaad baa kuu soo baxday ka faa'iidaystaan jecelahay markii labaad waa labadii qof isla gaadhay halkaa waynu eegi doonaa in dooro labada doorasho mooyaane lambarka kale kuu soo qabto lambar 7 lambarka 7aad ayaynu eegi doonaa weydiinta u soo baxda waxay ku oranaysaa weydiinta su-aashani hawada inagu gadaaman waxa ugu badan hawada inagu gadaaman waxa ugu badan ba oxygen ta carbon ja nitrogen xa fluorine hawadan inagu gadaaman hawada ugu badan hawooyinka ma oxygen ba oo ba ah mata oo carbona ja oo nitrogena maxa oo fluorine ba oxygen maxaa ku dooratay waan jeclaystay waad jeclaysatay oxygentu wataynu qaadano sidoo kalena carboonkuna wataynu soo dayno labadaasiba waa sax oxygen iyo carbon oxygen baad qaadatay ba wuu doortay oxygen ah su-aasha jawaabtaasi ayaan wada eegi doonaa su-aasha jawaabtaasi qalad nitrogen bay noqotay waa markii labaad waad beerdaraysay su-aashii labaad ridwaan ma faa'iidaysan doonaa su-aasha waxaan isku dayaa in markaa labaad faa'iidaysto markaa labaad waayahay lambarka ku hor yaala 3 baa tegey lambarkan ku qabtaa lambar 9 qabo lambar 9 lambarka 9aad ayaynu eegi doonaa weydiinta lambarka 9aad ku jirta waxa ay noqon doonto nasiibkiisa iyo waxa u soo baxda weydiintani waxay ku oranaysaa wadamada carabta ee ku yaala qaaradda aasiya tiradoodu waa ba 10 ta 11 ja 12 xa 13 qaaradda aasiya wadamada carabta ee ku yaala adigoo eegaya shaashadda hortaada taala waxay noqonaysaa ridwaano su-aasha haddaan isku dayo waa ba oo 10 ah 10 wadan baa ku yaala su-aasha jawaabtaasi ayaynu wada eegi doonaa oo 10 oo ba ah uu doortay wadamada carabta ee ku yaala qaaradda aasiya sax ma khalad waxa ku yaala 12 dal labadiina waa isla googoodeen ya markaa saddexaad markaad ku kala hadhayseen maxaaba halkan habaydu ka bixi weydeen su-aalaha kale idinku gaadhi iyo lacagtii oo halkaa taala kursigaa lacag baa taala waxa kana idinku adkaatay waa tahay mar labaad ayaa kugu celinaya lambar dooro lambar 6 lambarka 6aad ayaanu eegi doonaa afartoodii su-aalood ee min labada u lahaayeen midna muu garan laakiin taasaanu eegi doonaa inay kursiga yeeshaan amaba in labadooda ogaada laakiin 12 su-aaloodba haddaad garan weydaan dib baad u noqonaysaan waayo labadiinniba intaad garanaysaan unbaad ii hor joogaysaan
waxa ay su-aashan weydiintani ku leedahay sanadka cusub ee soomaalida waxaa loo yaqaanaa sanadka cusub ee soomaalida waxaa loo yaqaanaa kaltirsi gu nuur dabshid islaash baa raacsan amaba dabtuur sanadka soomaalida maxaa soomaali loo yaqaanaa sanadka cusub ee soomaalida afka adigoo u dhaweynaya mikrofoonka si lagu maqlo sanadka cusub ee soomaalida soomaalida waxaa loo yaqaanaa ba kaltiris da ta gu ja nuur xa dabshid amaba dabtuur bismillaah su-aasha haddaan isku dayo ba oo ah bulshada ba waa kaltiris kaltaris ba eeg waa kaltiris ta waa gu ja waa nuur xa waa dabshid ba oo kaltarisa kaltiris Ah. sanadka cusub sanadka ee soomaalida hadda Soomaalida. ba baa tiri su-aasha jawaabtaasi ba oo kaltirsiya ayaanu eegi doonaa ba buu doortay khalad ama sax sax ama khalad qalad qalad dabshid ayay sax ku tahay maanad maqal nayruus iyo dabshid iyo sanadada cusub ee af soomaaliga waxaan ku dheeraynaa meelaha kale iyo waxaan ku aqoonta leeyahay kale aqoomaha kale waayahay barnaamijka googa muhiimadda uu leeyahay waxaa ka mid ah inaanu dadka dhaqanka ku barno hadday tahay inta stuudiyaha ku sugan intiina tartamaysa iyo intana daawanaysa ee aan u suurtagelinba ridwaan lambar dooro lambar 8 lambarka 8aad weydiinta ku jirta ayaanu u eegi doonaa ridwaan weydiintan waxay ka odhanaysaa riwaayaddii la odhan jiray jin iyo jacayl waxa sameeyey riwaayaddii la odhan jiray jin iyo jacayl waxa sameeyey ba xuseen aw faarax ta huryo ja cabdiqays xa xasan geney riwaayaddii dab iyo jacayl riwaayadaha ma daawataa awan daawada riwaayadaha wa daawataa ah ya xaraf dooro adigoo degdegaya maadaama wakhti badan aad qaadateen labadiinuba waxaan dooranayaa ja ja Ah. oo cabdiqaysa ja ayuu doortay oo cabdiqaysa riwaayaddii jin iyo jacayl cabdiqays baa sameeyey buu yidhi ma sax mise khalad qalad mise sax su-aasha jawaabtaasina sidaasi ayay qalad ku tahay qalad 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 maxaan yeelnaa waxaan yeelaynaa insha Allah. sidani si ka badanay Sida waxaan ka yeelnaa badan waxaan u malaynayaa hadda inaan ku kala bixi doono markii horena sidaasaa tiri Ah. bal waayahay markaasi ayaan idin siin doonaa inta su-aalooda idiin hadhay amaba su-aalaha iyagu ee noqon doona kuwaad ku kala bixi doontaan labadiinu isla daasheen waana sidaan hore idinku sheegay halkaasaynu eegi doonaa waxaad ku gaadhaan labadaba waxaa idiin hadhsan oo keliya 6 su-aalood ood min 3 u leedihiin inaad halkaa ku noqonaysaan baan filayaa labadiinoo wada socdaaba bal waxaan eegi doonaa lambar dooro 12 lambar 12 oo lambarka ugu dambeeya ayaynu wada eegi doonaa su-aasha jawaabtaasi uga soo baxda tartamahaasi iyagoo labada tartamaba goorahanba ay isla rafanayeen waxay ku odhanaysaa weydiintani magaalada xiingalool waxay ka tirsan tahay gobolka magaalada xiingalool waxay ka tirsan tahay gobolka ba badhan ta sool ja sanaag xa togdheer xiingalool bismillaah aan ku nasiibiyo ba oo xingalool ah ba oo badhana oo badhana xiingalool ma maqashay may waan maqlay laakiin maan arag maad arag inay badhan tahay laakiin malaynaysaa ah su-aasha jawaabtaasi ayaanu wada eegi doonaa ba oo badhan ah ayuu doortay khalad mise sax sax hambalyo 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 ridwaan jaaniska hadduu garto kula mid buu noqonaya waad sii socon doontaan hadduu garan waayana wuu iska tegi doonaa kursiga adigaa yeelan doonaa ridwaan su-aashii ugu horreysay ayaa la gartay lambarada ku hadhay mid dooro lambar 10 lambar 10 ayuu ridwaan doortay marka horena 9 baad garan weyday bal su-aasha jawaabtaasi amaba su-aasha u soo baxda ridwaan ayaanu eegi doonaa jawaabtu amaba su-aashu waxay ka odhanaysaa caasimadda saddexagalka waxaa loo yaqaanaa caasimadda saddexagalka waxaa loo yaqaanaa ba khartuum ta dimishik ja qaahira xa isla qaahira uun labada hoose markaa khartuum dimishik iyo qaahira caasimadda saddexagalka maxaan kuu dooraa
nasiibkaaga adigoo eegaya waqtiguna wuu inagu socdaa su-aasha caasimada saddex aqalka caasimadda saddex aqalka waxaa loo yaqaanaa ba khartuum ta dimashq xa ja qaahira waa xa qaahira caasimadda saddex aqalka waxa uu doortay ja oo qaahira ah su-aasha jawaab xa waa isku midun xa baynu eegi doonaa oo qaahira ah su-aasha jawaabtaasina sidaasi ayay khalad ku tahay khartuum bay sax ku tahay ridwaan waad ku noqon doontaa kursigaagii adiguna kursigaasaad yeelan doontaa hambalya baan ku leeyahay waad ku guulaysatay kursigaasi ayaad fadhiisan doontaa barnaamijka qaybta labaad ayaan geli doonaa waa tahay daawadayaal isku soo noqod wanaagsan qaybtani waa qaybta su'aalaha waxa ay kayse iyo iidba ku guulaysteen inay noqdaan tartamayaasha barnaamijka ah ee iyagu ku guulaystay kuraasta amaba labada kursi aan ugu talagalnay qof kasta oo ka soo baxa qaybta hore inuu mid ka mid ah uu yeesho labadoodu waxay noqdeen guulaystayaasha barnaamijkayaga waxaana u gudbi doonaan qaybta ay u bilaabmayso lacagta su'aal kasta oo iid iyo kaysow aad garataan waxaad heli doontaan 50,000 oo shilinka Soomaalilaana taad garan weydaana lacag laydin qori maayo waxaad tirsan doontaan intaad garataan 12 su'aalood ayaa hortiina yaala mid kastaaba wuxuu yeelan doonaa 6 su'aalood oo ka mid ah su'aalaha ambaba lambarada uu dooranayo waxaan ku horeysiin doonaa Kayse oo ahaa tartamihii ugu horeeyay ee barnaamijka soo baxay Kayse dooro mid ka mid ah lambarada hortaada yaala waxaan dooranayaa 7 Kayse waxa doortay lambarka 7 ayaynu eegi doonaa ee barnaamijkeena Goga lambarkaasi weydiinta uga soo baxda ayaan weydiin doonaa lambar 7 ayaynu eegi doonaa waxa ay noqoto weydiintani waxay ku oranaysaa Kayso awrka hayiinka ah marka la rarayo waxa la yiraahdaa awrka hayiinka ah marka la rarayo waxa la yiraahdaa ba samay ta do ja oho xa intaba awrka hayiinka ah marka la rarayo waxa la yiraahdaa samay ta do ja oho xa intaba waxaan doortay ba Kayse ba oo sameeyaan doortay ba oo sameeya ayuu doortay su'aasha jawaabtaasi ayaynu eegi doonaa oo uu ba doortay Kayse jawaabtaasina sidaasi ayay sax ku tahay hambalyo kontonkii kun ee ugu horeeyay su'aashaasi waad garatay iid ayaynu u wareegi doonaa su'aasha uu doorto Kayse su'aashiisi wuu gartay iidoo lambarkan ku doora bismillaah lambar 6 lambarka 6 ayuu Kayse doortay lambarkaasi weydiinta uga soo baxda ayaynu eegi doonaa lambar 6 weydiinta ku hoos jirta waxay tiraahdo iyo waxay u noqoto ayaynu eegi doonaa iid waxay ku oranaysaa qaaradda Aasiya magaalada ugu weyn waa weydiintu waxay ku oranaysaa qaaradda Aasiya magaalada ugu weyn waa Hong Kong Tokyo Pakistan midnaba Hong Kong oo ba Tokyo oo ta Pakistan oo ja xa oo midnaba qaaradda Aasiya magaalada ugu weyn waa idoo adigoo mikrofoonka afka ku dhaweynaya maxaan ku dooraa ta oo Tokyo may xa innaba xa oo midnaba qaaradda Aasiya soo ma garan sorta magaalada ugu weyn waa ba oo Hong Kong ta oo Tokyo ja oo Pakistan xa oo midnaba xa oo midnaba aan doortaa maxaan ku dooraa waxaad ii dooraysaa ba oo Tokyo qaaradda Aasiya magaalada ugu weyn waa ba oo Tokyo ah buu yiri weydiintaasi ayaynu eegi doonaa ta oo Tokyo ah su'aasha jawaabtaasi iido maxaa dooratay igu celi mar kale ba oo Tokyo ba waa Hong Kong ta ba Tokyo ba dooratay ba oo Hong Kong qaaradda Aasiya magaalada ugu weyn waa ba oo Hong Kong buu yiri iid su'aasha jawaabtaasi sax ama khalad ama sax sidaasi ayay qalad ku tahay ta oo Tokyo ayay sax ku ahayd
iid su-aashaadii koobaad waad garan weyday waxaanu u gudbi doonaa qaybaha kale ee weydiimaha iid su-aashiisii koobaad umay suurtogelin inuu lacagtii ku hoos jirtay uu la baxo qofkii saxa unbaa lacagtaasi la baxaya kayse lambarkaad kuu doortaa ambaba kuu soo qabtaa lambar 9 lambarka 9aad ayuu kayse doortay weydiinta lambarka 9aad ku hoos jirta lambar kasta iyo lacagta ay leedahay ayaynu eegi doonaa qofkii gartaana lacag buu qaadanayaa qofkii garan waayaana sidaas ayay lacagtu kaga gubatay waxay ku oranaysaa weydiintani qalanqalku waa ba qaylo ta qof dhib badan ja geed xa xayawaan qalanqalku waa ba oo qaylo ah ta oo qof dhib badan ah ja oo geed ah xa oo xayawaan ah qalanqal jawaabteedu adigaa lagaa sugayaa doorashadeedana adigaa lagaa sugayaa qaylo kayse waxa uu yidhi qalanqalku waa ba oo qaylo ah su-aasha jawaabtaasi sax ama khalad ama sax su-aasha jawaabtuna sidaasi ayay qalad ku tahay geed ayay sax ku tahay oo ja ah qalanqalku waa geedaha ka mid ah iid adigay ku maraysaa lambar dooro lambarka 8aad ayaan iid u soo qaban doonaa una eegi doonaa weydiintaasi iyadu ku hoos jirta waxay ku oranaysaa weydiintani isma doorin gaal kaandiriyo daarta kii galaye gabaygaa waxa tiriyey isma doorin gaalka kaandiriyo daarta kii galay gabaygaasi waxa tiriyey cali xuseen doodaan gaariye qaasim ba waa cali xuseen ta waa doodaan ja waa gaariye xa waa qaasim isma doorin gaal kaandiriyo daarta kii galaye bismillaah dan isku dayo su'aashaas xa oo ah cabdiqays xa oo ah qaasim waxaanu eegi doonaa su-aasha jawaabtaasi isma doorin gaalka handiriyo daarta kii galaye gabaygaasi waxaa tiriyey xa buu doortay oo abwaan qaasim ah allaha u naxariistee su-aasha jawaabtaasi sax ama khalad ama sax su-aasha jawaabtuna sidaasi ayay sax ku tahay hambalyo iid waad soo gaadhay isaguna su'aal buu gartay adiguna su'aal baad garatay midna waad garan weyday midna uu garan waayey kayse doorashadu waa halkaaga lambarka 10aad ayaynu eegi doonaa kayse iyo waxa u soo baxaa waxay ku oranaysaa weydiintani wadamada Yurub dalka ugu dadka badani waa kow Sweden oo baa ta Ingiriiska ja Belgiumka xa Faransiiska maxaan ku cagoobaaba waxaan doortay Ingiriiska waxa uu doortay xarafka ta oo Ingiriiska ah kayse su'aasha jawaabtaasi ayaan eegi doonaa sax ama khalad ama sax ama khalad su'aasha jawaabtuna sidaasi ayay khalad ku tahay iid bismillaah waxaan doortay lambarka 4aad ayaynu eegi doonaa iid lambarka 4aad weydiinta uga soo baxda weydiintaasi ayaynu eegi doonaa waxay noqotaa iidoo weydiintani waxay ku oranaysaa asxaabigii abudajaan waxa uu shahiiday sanadkii 8aad ee hijriyada sanadkii 9aad ee hijriyada sanadkii 10aad ee hijriyada xa oo sanadkii 11aad ee hijriyada abudajayna asxaabigaasi sanadkuu shahiiday bismillaah haddaan isku dayo ja oo 10 ah waxaynu eegi doonaa ja oo 10 ah ayuu doortay iid su'aasha jawaabtaasi sax ama khalad ama sax su'aasha jawaabtuna sidaasi ayay qalad ku tahay waxa uu geeriyooday sanadkii 11aad maad fogaan adiga laftarkaagu in yar baad aad u jirtay waxaanu u gudbi doonaa qaybaha kale ee weli aynu ku guda jirno ee barnaamijkeena barnaamijka googa waa barnaamij aan ugu talagalnay in qaybaha kala duwan ee bulshadu ka faa'iidaystaan su'aalaha dhaqanka ah kuwa diiniga ah iyo kuwa taariikhda intaba ah aqoontu waa ta qof walba ku jirta balse qofna ma uu dhamayn
qof kastaba inbuu garanayaa kayse lambarkaan kuu soo qabtaa lambar 5 lambarka 5aad ayaynu eegi doonaa su'aalaha barnaamijkeena intaas waxa ka dambeeya 5 su'aalood u hadhi doona ayaan filayaa labadoodaba waxay ku oranaysaa weydiintani abubakar sadiiq radiyallahu anhu inamadii uu dhalay tiradoodu waxay ahayd abubakar radiyallahu anhu inamadu uu dhalay tiradoodu waxay ahayd ba oo 2 ah ta oo 3 ah ja oo 4 ah xa oo 5 ah abubakar sadiiq inamadiisu imisay ahaayeen doorashadu waa halkaaga jawaabtu waa halkaaga adigan kaa sugaynaa waxa aad doorato amaba ay noqonayso jawaabta su'aashayna hortaala kayse maxaan kuu dooraa waxaan doortay xa oo lambar 5 waxa uu doortay kayse xa oo 5 inan ah abubakar radiyallahu anhu inamadiisu inay ahaayeen 5 buu yidhi su'aasha jawaabtaasi sax ama qalad ama sax su'aasha jawaabtuna sidaasi ayay qalad ku tahay inamadiisu 3 ayay ahaayeen waan kaa wareegi doonaa iid adigay ku maraysaa su'aashaasina kama uu faa'iidaysan waxaan filayaa min hal su'aalo uunbaad garateen ilaa hadda intii aynu barnaamijka ku guda jirnay barnaamij kasta ku xisaabtama 50,000 oo shilinka Somaliland ayay noqon doontaa maxaan ku dooraa bismillaah lambar 1 lambarka koobaad ayaynu eegi doonaa lambarka koobaad jawaabta amaba su'aasha uga soo baxda waxay ku oranaysaa weydiintani dalka Masar hogaamiyihii muslimiinta ee furtay waxa uu ahaa dalka Masar hogaamiyihii muslimiinta ahaa ee furtay waxa uu ahaa Khalid bin Walid oo baa ta oo Ismaan ibn Affan ah ja oo Jacfar ah xa oo Umar bin Aasa bismillaah dan isku dayo ja oo Jacfar oo Jacfar ah ayuu doortay su'aasha jawaabtaasi ayeen wada eegi doonaa dalka Masar hogaamiyihii muslimiinta ahaa ee furtay waxa uu yiri ja oo Jacfar ah su'aasha jawaabtaasi sax ama qalad waxay sax ku tahay Umar bin Aas taasina kuma ay suurto gelin inaad iido aad ku guulaysato waxaanu eegi doonaa qaybaha kale ee barnaamijka su'aalaha hadhay qaybtiisa kale ayaynu u sii gudbaynaa labadooduba wali waxay ku jiraan weydiima 4 ah oo min 2 ay u leeyihiin ayaa u harsan kayse lambarkee ayaan ku qabtaa lambarada iyagu shaashada kaaga soo bixi doona ee ah lambarada ku yaala barnaamijkeena barnaamijka googa ayaynu bartanka ugu jirnaa tartamayaashii ugu horeeyay ee ku guulaystay kuraasta ayaa agteeda fadhiya 2 kursi 2 su'aalood ayaa idin harsan midkiiba min 2 yeelan doontaan lambar doorta lambar ayaad ka dooran doontaan waxaan filayaa programka halkaasaynu ka sii wadi doonaa ee 2 lambar intaas mid ka doora 11 12 barnaamijka googa daawadayaal waa barnaamij aan ugu talagalnay bisha barakaysan ee Ramadaan inuu guud ahaan bulshada reer Somaliland meel kasta ay ku sugan tahayba ay ka faa'iideystaan barnaamijkani iyo qaybihiisa kala duwan xayisiis ayaynu geli doonaa kadib aynu isku soo noqon doonaa Somaliland dhammaanteed subaxdii iftiintaba soo gashaa siraadka iyo internetu sida suuqyada magaalada ganacsigaas u sumaya sixirada ascaarta iyo sarifka dhex yaala waxay saanta haystaan internet ilaa coosugan oo marqura goyn hadduu ganacsigaagu korayo khubarada adduunyada shirar aad la gelineed waddan kale aad oo tegin kharashkaaga bixin baad internet adeegsanoo soo gashaa awood badan feebarkeedu saxan yahay ganacsigana u gaar yahay qoys lagama maarmay guriga iyo carruurta iyo madadaaladooda mar kastaba muhiime markay soo gasho helaan bay muxubbada mabsuudaan maankaaga geliyo internet ha moogaan gurigaaga soo gela wireless speed badan feebarkuna ku xidhan yahay la xidhiidh dadkaaga oo caalamka la jaanqaad mayfay awood badan dharaariya habeenkii hadduu isticmaalkaagu badan yahay daatadiisu xadid ma le mashquul iyo dhammaad ma leh mar qudhaata go'id ma leh haddaad gaadho suuq iyo goobaha waxbarashada halka lagu caweeyaba soobaa isgaadhsiin gurigaaga baahnayn ruutir kugu xidheenno hawadaada keento kugu tidhi wayfaygaaga furo oo isticmaal la dabadeed hotspot sbiid badan
soo gasho waa shirkadda koowaad ee somalilan hogaaminaysa isgaarsiinta internetka fiber optiga ka ganacsiga iyo ka guryaha iyo dhammaanba adeegyada kala duwan ee shirkadda soo ay bixiso internet awood badan oo fiberka ah wax ku baro ku daawo ku ganacso ku iibso ku iibi kuna ciyaar isticmaal mar walba iyo meel walba tayadu waa awoodee kiise adiga ku maraysaa waxaan doortay lambar 12 lambar 11 ayaynu eegi doonaa weydiinta uga soo baxda kiise waxay noqoto weydiintani waxay ku oranaysaa suuradda ay ku jirto aayadaha ka hadlaya dhaxalku waa suuradda ay ku jirto aayadaha ka hadlaya dhaxalku waa ba nisa ta tabaarig ja baqra xa cimraan kiise adigay kuu taagan tahay maadaamaynu intii ugu dambaysay aynu ku jirno mikrofoonka adigoo afka u dhoweynaya maxaa dooratay suuradda ay ku jirto dhaxalku waa sheeg waaye ha ka baqin kuwii horeba sidii aad ugu dhiiranaysay nasiibkaagumaad qaadi doontaa suuradda ay ku jirto aayadaha ka hadlaya dhaxalku waa makhaaban kuu dooraa ya ja oo baqra ah suuradda ay ku jirto aayadaha ka hadlaya dhaxalku waa baqra ayuu yidhi oo ja ah su-aasha jawaabtaasi sax ama qalad waxay sax ku tahay suuratulnisaa iid adigay kuu soo wareegnay weydiinta lambarkeeda aad dooranayso ii sheeg bismillaah 12 lambarka 12aad ayaynu eegi doonaa su-aasha uga soo baxda iid oo su-aalihii ugu dambeeyey aynu gallay barnaamijkeena googa waxay ku odhanaysaa weydiintani dowladdii cabbaasiyiintu waxay xukunka haysay dowladdii cabbaasiyiintu waxa ay xukunka haysay ba 400 sano ta 500 sano ja 600 sano xa 200 sano dowladda cabbaasiyiintu imise haysay xilka bismillaah daan isku dayo xa oo 200 sano xa oo 200 sano ah ayuu doortay oo dowladda cabbaasiyiintu muddadii ay xukunka haysaya xa baynu eegi doonaa su-aashaasi jawaabteeda qalad ama sax ama qalad su-aashaasina sidaasi ayay qalad ku tahay 500 sano oo ta ah ayay sax ku ahayd weydiimada ugu dambeeyey ee barnaamijkeena googa ayaynu geli doonaa 2-3 baa hadhay ka doonto dooro isaguna kawa hadhuun buu yeelan doonaa kayse labaan doortay lambarka labaad ayuu kayse doortay weydiintaasi waxa ay noqoto weydiinta lambarka labaad ayaynu eegi doonaa waxay ka oranaysaa dalka kenya waxa uu xuduud la leeyahay ba 3 dal ta 4 dal ja 5 dal xa 6 dal waddanka kenya kayse inna kenya ma tagtay ma tegin waa tahay waddanka kenya imise dal ayuu xad la leeyahay 3 dal marka etoobiya soomaaliya baad ka dhigtay yaa 3 dal baan kuu dooraa waxaynu eegi doonaa ba soo maha 3 dal hee ta oo 4 dala dalka kenya waxa xuduud la leeyahay ta oo 4 dala su-aasha jawaabtaasi sax ama qalad ama sax su-aashuna sidaasi ayay qalad ku tahay 5 dal ayay xad la leedahay 5 dal tanzania uganda soomaaliya etoobiya south sudan bay noqonaysaa marka hore sudan bay xad la lahayd 5 dal lambarka ugu dambeeyey iyo iid lambar 3 waad ku qasbantahay uu ku hadhay maadaama doorashadaadu lambarka 3aad ayaynu eegi doonaa su-aasha uga soo baxda waxay ka oranaysaa weydiintani lowska ugu badan dunidu waxa waddanka soo saara waa lowska ugu badan dunida waddanka soo saara waa ba
suuriya ta yaman ja masar xa hindiya waddanka ugu badan lowska soo saara waa suuriya yaman masar iyo hindiya bismillaah ta oo yamana lowska ugu badan dunida waddanka soo saara waa ta oo yamana ayuu doortay su-aasha jawaabtaasi ayaynu eegi doonaa sax ama qalad ama sax su-aasha jawaabtuna sidaasi ayay qalad ku tahay hindiya ayaa ugu badan aad baad u mahadsantihiin iid iyo kayse hal su'aalood ayaa labadiinuba saxdeen wakhtigiina waa idinka mahad celinaa daawadayaal barnaamijka googa intaasi ayaynu ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkani barnaamijka xigay intaynu ku kulmi doono aniga khiyaarta kale igala qayb qaadatay waxaanu idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh so